السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو channel كيغا يان قوب دونا مركا ليسكو سو نقود وناكسن إيه مقال كالو عصب إيه قصة كالو عصب ديواو كوكو برينا مدقليو إيه عافمات واسوتو استيادو عافمات قبو هاي المامن إن إلهي سبحانه وتعالى الله وانا حي بسم الله هاي المامن إن إلهي سبحانه وتعالى ومهد علي سد وأنا مهد علي سد معذو كسيي من على علي مركو واغو نو بريو أفكينا برنو يا رب لك الحمد ولك الشكر إنا دهنو سي إلهي سبحانه وتعالى ونو سياديو انت ونسيي ما أنتنا ومالين جمعاها عن باذنو سليق النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولبسيقة الإبراهيمية ومهد سنتينة اسكسو نقود وناكسانية قصة كله وعجائب كذا وضطا waxaa la yiri god sireed ha qodin hadaa qodidna ha dheeraynin ku dhici doontidaa lama ogee dabbinkii uu xaaskiisa u dhigay yaa ku dhacay dabbinkii uu xaaskiisa u dhigay weliba asagoo raba inuu naag kala guursado yaa dambinkaasi ku dhacay gabadha qisadan ay ku dhacday waxaa lagu magacaabaa Masiira gabadhaasi waxay ku nooleed xuduudda u dhaxaysa Jazaa'ir iyo Tunis waxay ahayd gabar marka qisadeedu ay bilaabanaysay aad u da'yar waxay la nooleed hooyadeed iyo aabaheed iyo wiilal markaasi ayada la dhashay aabaheed wuxuu ahaa nin muharrib ah ama dadka xuduudaha dhaafsiyo ee dadka tahriibiya aabaheed marka loo fiiriyo tuulada ay ku noolaayeen wuxuu ahaa nin aad looga cabsado waayo hadday laba qof oo kale meel isku qabtaan oo kale wuxuu isku dayi jiray inuu xoog ku galo inuu qofkii asaga maankiisa ka soo go inuu u hiiliyo mar walbana wuxuu ahaa ninka gabadhaani dhalay ee lagu magacaabo Abu Masiira nin hubaysan asaga hadday qof isku daydo inay dhinaciisa soo aadana naftuuba ag dhigi jiraba marka meesha ay ku noolaayeen qaryada yarta ay ku noolaayeen maadaama ay tahay qaryo yaroo dadku ay aad isku yaqaaniin ninkaasi waa la isaga digi jiray ninkaasi aan loo dhawaanin ilmuu dhalay aan loo dhawaanin meelu taagayaan la istaagin oo walow dadka tahriibi jiray haddana wuxuu isku darsaday dabci xumo iyo inuu qofkii laba eray ay isdhaafsadaan nafta uu ag dhigo wuxuu wataa marka qaar seef marka qaar wuxuu wataa bistoolad waana nin aad shariir u ahoo aad u kulkulul wiilashiisii mar alaale iyo markii ay soo weynaadeen subxaan allah subxaan alqaaliq dabcigii asaga uu lahaa camal ayaba la soo baxeenba isla ayagiina waxay shaqo ka dhigteen inay aabood dhinacoodii kala shaqeeyaan oo dadka ay tahriibiyaan marka la fiiriyo qoyskiisa aad ugu jilicsanaa xaaskiisa gabadhiisa aad ugu jilicsanaa hadiyadu xaaskiisa u keeni jiray gabadhiisa sidoo kale dahab hadiyadu adduunyo u keeni jiray marka dhinaca maadiga la fiiriyana noloshoodu nolol macquul oo kaal aragay ahayd wiilashaani markay soo barbaareen oo niman rooroon ay noqdeen sidii oo kale dadkii dariska xataa qaraabada way ka cishi jireen wiilashooda ma ninka muharrabka wiilashiisa yaana loo dhawaanin ninkaas looma dhawaa karo dadka waa dilaa iska ilaaliya wiilashiisa yaysan idinkala dheelin yaysan wax ku darsanin wiilashiisiina waa kaasa aqiiran waxay noqdeen ayaguna muharribiin dadkay tahriibiyaan inta waa laisku farfiiqaa war qaraabadoodii dad ugu dhawaa ayaa farta ku fiiqo waxay dhahaan ninkaas meel uu taagan yahay qof yaysan u dhawaan waxay noloshoodii sidaa ahaataba aabbahani shaqadiisuna ay sidaa u ahaataba gabadhiisii yareed markay xoogaa soo gaartay maadaama ay reerka ugu yareed oo gabar da'yar ay ahayd markay xoogaa inay wax fahmaysa ay soo gaartay waxay aragtay gabdhihii jaarka oo kale markay rabtay inay la ciyaarto in sida qof ma aragtay oo nijaas oo kale camal in la isaga ilaalinaayo gabdhihii inay iska ilaalinayaan waalidku iyagana sidoo kale gabdhahooda inay ka ilaashanayaan gabadhi way yaabtaa ma fahmayso waayo ay dadku iyo takooraan maxaa markii la arko inaa ilmo kale la ciyaarayo dadka ilmahooda ula ordaan maxaa waaye anigu ceebta aan leeyahay oo dadku ilmahooda ay iga ilaashadaan marka waa ilmo yar xilligaasoo ma fahmi karto sababta ka dambeeyo oo waalidkan kale ay ilmahooda uga ilaashanayaan ma fahansanaa ama isma dhehayso aabbaha nin yacni laga baqa ah aabbaha dartiisay dadkaan oo dhan kuu faquuqayaan isma dhehayso way yaabantaa marka waxay leedahay waay aniga jaarka kulli dadka dhan ay ii nacaan gabadhii waxay sidaa ku fakarta oo ku fakartaba waa ay soo weynaatay reerkeeda marka waa ay dalacsiiyaan aadaa loo koolkooliyaa hadiyadii adduunyaa loo gadaa dahabkaas sidaa ugu hilan aadaa loo jecel yahay laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo bulshada oo dhan gabadhaasi ma jecla
oo aad u takooran tahay ayadu marka ma fahansan alcumuum markay soo weynaato barbaarad noqotay ee indhaha waxayba ku furataba gurigeedana inaysan gabdha imaanin banaanka haddii ay isku daydana kuway wax la barato kuway maxaa la dhahaa banaanada ku aragto hadday la ciyaartay isku daydana waaba naag yacni aad la isaga ilaalinayo hooyo walba waxay leedahay ma heblaaya agteeda istaagtay ma heblaaya la dheeshay heblaayaha u dhowaanin heblaayasaan ha yeelin in loo dhowaado aaba waalidku ayba ka didaayaanba gabadhii markii dambe marka cuqudad qof la nool ay noqotay waxay tiri see camal anaga yani haddii aniga aabbahay uu nin dadka yani si khayr sharciya u diro walaalahayna ay yihiin wiilal kulkulul aabbahay nin kulul yahay anigu dembigan ku yeesha maxay tahay anigu gabaraan ahay hooyadeeda marka u cataabi jirtay hooyo maxaan dadka uga soocanahay maxaana loo faquuqaa maxaa anaga ummadda kale ilaahay ilmahooda waa lala dheelaayo waa lasoo dhawaystaay aniga aysan jaarkayga iyo dadka qaraabada xataa aysan iisoo dhawaysan iska badaa jaarkii qaraabadii ay faquuqayse maxaa waay dembigan gal hooyadu marka ma tiraahdo aabaha dartiisaa laguu nacay walaalaha dartiisaa laguu nacay midna ma tiraahdo kuwa sii darsee dadku haddana waxay saa'idka usii faquuqayaan waxaa keenaayo gabadhan masalan oo kale gabar dariska hadday isdagaalaan wiilasha la dhashay hadday maqlaan gabadhaasi waxa waaye meedkeeda meesha laga qaadaa soo qof walba marka wuu iska ilaaliyaa yaa loo dhowaan duka cambaar lama maqli jirtay ee gabadhii noqotay wiil horta hadduu u dhowaadana malagiis yaa maalinkaas imaadaba calaayi taxaal gabadhii markii dambe way ogaatay maadaama reerka ay kasoo jeedo ayba yihiinba reer shacni la nool reer maxaa la dhahaa muharibiin ah reer ayaga dhan buuq badan sidaas liajligeed inay bulshadu gabadhan iyo reerkeedaba ay u faquuqaan markii dambe waxay tamanisay oo ay istiri ilaahayow noloshaan anigu kuma qanacsani reerkaygu maanta waxaan cuno iyo waxaan cabo iyo waxaan xirto iyo wax walba oo aan u baahanahay waa aan ka helaa laakiin dhinaca kale markii la fiiriyo qof dhiban oo cadiban aan anigu ahay oo nolosha sidaasaa ka dareemaa waayo gabar ilama dheeli karto gabar meel ilama istaagi karto gabar meel iskuma raaci karno gabar haddaan wax isla baranayn wax islama aqrisan karno waxaasi nolol maahan ee ilaahayow noloshaa nolol dhaanta ilaahu rabbiyo iyo qadar kaaga sii darane gabadha taqriiban da'dii 20 sano ay gaartay gabdhihii qeyrkii ahayd waxay isugu kala baxeen mid nin u doonan oo mar dhow la guursan rabo mid nin u mehersan oo mar dhow idan la aqal geysan rabo mid yacni la isku sheegay oo mar dhow lasoo doonan rabo iyo mid ilmaheediiba daadiinayso reerkeedii soo salaanto ayadoo 3 iyo 2 jiidaysa gabadhaani nin walba oo guur ka soo damco hayey ha u dhowaanin ma balaayaa gacanta la gelee ma musiibaa rabtaa inaa hadda gacantaada ku doonatid war waxbaa ku falin ha u dhowaanin waa la isku tilmaamaa nin walba marka waxaa la yidhi leen gabar lama guursado reerkeedaa la guursadaaye sheekadaasi markii ay maqleen waa ay ka fogaadaan allaheen allah ninkii gabadhan soo jeclaado kadib markuu qisadeeda iyo nolosheeda baaro dariska oo dhan waa ay u digaan ha u dhowaanin meelay taagantaha istaagin warkuguma ogin warkaas siko saasaa la dhahaa nimanku marka waa isku sheegaan nin walba markuu albaabkeeda soo garaaci la rabaa leey ha isku taaban albaabkan wiilasha la dhashay gabadhan waa maafiya aabeed waa kasii daran yahay ha u dhowaanina wiilashii marka dib ay u laabtaan waxay dhahaan laheen alla anagu gabar maafiya ay yani reerkeedu yihiin ma rabna inaan guursadno gabadhuna waxay tamanisaa ilaahayo nin rabbiyo raxmaan albaabkaas ii soo garaaca oo noloshaan xun iga saara waxshinimada ahee islaamkii oo dhanba ayna naceen ilaahayo iyo qadar si aan nolol firi ah oo xor ah oo deganaana oo saaxiib u yeesho oo dadku ii imaan karaan aan rabbiyow keligii u yeesho waxay sugtaba qeyrkeed la kala qaaday ayadu waa soo taagan tahay gabadhii marka ayadoo sidii u tamaniso maalin un ilaahay inuu albaabkaa nin uga soo saaro nin yacni guur kasoo dalbada ay hesho ayaa ilaahay qadarkii waxaa dhacay maalin hooyadeed ayadoo faraxsan ay guriga kusoo laabatay markaasay saa inta u fiilisay waxay tiri hooyo qeyr sheegoo maanta gurigaadoo faraxsan aa soo gashay maxaa nugu soo kordhe ma wax iiga farxad badanoon maqli lahaa aaba jiray tiri gabadheediyey waa la iga kaa soo doontay gabadhi farxad maanigaa la isoo doontay waa qiiran maanaa la iisoo gogol fariistay alxamdulilah ashukru lilah haye tiri waa lagu soo gogol fariistay mar dhow mar waa noqone mar dhow waxaa la waaye aroosaa lagu dhigaa waa lagu galbinaa waa aqiiran ay tiri waa aqiiran ma la isoo doonte qeyr sheegay tiri hooyo markay isoo doonte yaa kaloo soo doonanayo waxay tiri hooyo wiilka walaalkaa saaxiibkiisa ee hebel la dhaho ayaa kusoo doonte gabadhii hal mar unbay dib u laabata kood inta isku tiri ay tiriyaa ma wiilka aniga wiilka ila dhashay la saaxiib ah aa isoo doontay
hooyo dhegaysay tiri kudka guur oo qanjo u guur nolol ah aniguma rabo wiilka aniga ila dhashay mid kale saaxiibka walaalkay uu ku dabci yahay waa ku dhaqan waa ku shaqo waa isku dabeecad anigu noloshaan inaan ka baxaan ilaahay ka baryo yahay ani maaragtaa sha'ni inta ka baxo sha'ni kan inaan lagu hala galo idhagaysi tiri hooyo ninkaasi waa maafiyo waa boroboleen badan yahay aniga nolol haadi ah oo bilaa boroboleen ah oo aanan buuq lahayn oo jaarku ii soo geli karaan oo cid walba aan gacanta isqabsan karno aan ku tamaninoyaa maalin inaa helo haddii aan saaxiibka walaalkay guursado noloshaan mid kasii daran inaan gala maahane mid ka macaan maba galaayiba hooyo waxay tiri kolay nin kuusoo gogol fariisanaya uma jeedi nin walba albaabkaasuu ka laabtaa adigana guuraa rabtaa gabadhaydii mustaqbalaan kuu rabnaa ee maxaal xal ah hooyo waa soo taagnaa karaahay tiri waxa aan ka cararaya maanta aan isleeyahay u guurso waaba in aan noloshaan ka baxo haddiiba aan noloshaan nolol la mid ama ka daran aan galaayo allahey kale nabigeyka maxamed anaa rabtaa miyaa qaylo iyo qajajac iyo maalin walba yaa la tahriibiye yaa la xiray intaba qofaa laga xiray xuduudama qofaa dhaafay badama qofaa galay intaba qofaa galay hooyo aniga taas tabarteyda ma ahay tiri habeenkii waa walaale igoo qarwaaya maqlaan in maaragtaa nin aan sarrata la jiif inuu igu soo qarwo allahey alla nabigeyna ka maxamed waayay tiri hooyadii anigu kuma qasbaayo alla macaka gabadhaydiyey gabadhaan markaa wax kale iska daaye hanti ahaan maanta haddii la dhaho يعني إنه هنتكو قالوا هنتي حتى ويه ستا لكن ما كيو دان فابيه كقبان قبل يوحي يقولوا ودي اسكتشوك تبع مال المال ما كمل ومالك علف كي وإماطوني أيام ميل ودكان وهو وحيابها ندوات المنزلية لده أي وحي كدولة تأذيك حافظه ذي حوجا وجرا ماشي اسمرك واحد جوجا ويل قدور لده وما قاعد يعني قدوري ما كرناه عبد القادر ولا بحنا ويل دان يرى ولقوا ما قاعد عبد القادر ويل كاس أو قبلان إيه سيقانين gabadhii masiire ahayd mar alaale markii ay adeegii dooratay ayaa ilaahay qadarkii iyadoo adeegii gadanayso ayaa wiilisaa u fiiriyaa saas umuu indhaha ula raaca way fahantay waxay tiri oo kaalay kan maanta sidaan ii fiirinaya muxuu ahaa adeegii iska soo dhammaysatay wiilkaas marka ka helaaya gabadha oo aadka u fiirinaya yaasiina lagu magacaabaa wuxuu saaxiib leeyahay wiilkan cabdiqaadir ee magac adeega ah qaduur la yiraahdo qaduur ma karnay cabdiqaadirka ku wadanayna wuxuu saaxiib leeyahay wiilkan cabdiqaadirka ka bacdiya markay gabadhii howlaheedii adduunkeedii ay dhamaysatay ayaa yaasiinkii wax eegayay gabadha ka helaya wuxuu yiri warniyow maanta nicma albaabka kuu soo garaacde xabadaan kaa adeeganaysiyay kuu ahayd xabadaana ma taqaanid miyaa uu yiri markaasuu yiri may ma aqaaniyay ahayd wala gabadhaan masiiraa lagu magacaabaaho dee ninkaas nooca iyo noocaasa dhalayo halkaasay degan tahayo waa iga adeegataa walaalow gabadha waaba ka helayo waaba naag shidanoo dahab iyo adduun uba ka laalaadee niyo xabadaan maad reerkeeda iyo geesidood gabadhaan inaad doontaanba rabaa aniga nin fursad gaab ahaanba ohoo mid yaroo iska waxaan ahaa biidhaahoo askari isaga jiro xaalkiisa xaalihee gabadhaan dahabka iyo adduunka ka helalayn oo aan madaxa la gale niyo ma ay bartid ha u dhowaan lama yahay ha u dhowaan kugulama talinaayi taasina kuuma noqoto see camal u dhaa bismillahi rahmaani rahiim maxaa jira maxaadan igula talinayn maxayna naag iigu noqon oo gabadhu maxay qabtaa idhagaysu yiri nin muharab weynaaday ah oo maalin kasta bistooladdu halkaa ay ugu taagantao qof walboo gees u fiiriya indhaha u guduudayo bistooladda gees u tusaayo iyo wiilal maafiyaahoo ka daran uu dhalay gabadhaan walaal macaanta mas-uulka ah aniga marka ma kugula talinaayo gabadha noocaan ah inaa guursatid oo maxaa jira u dhahay hadday maafi yihiin aabeed maafiye maxaa iga galay anigu waa guursanaa oo kaaliyu yiri walaaliyada hadday maafi yihiin oo aa guursatid adiga inteed iskuladaysin ayaga iyo aniga haddii maanta aan ka xanaajiyo dukaankaan ma joogiyo hadday wax inta iga soo doonato aan ka xanaajiyo sida ilmihi u sasabaa oo kalmad yar aan isdhaafsano bistoolada halkaas la iga saara dukaanka waa la iga xiraa waa la itaxaaba xabsiya la igelina aniga dhanba duku daakun war aniga xabsi igeli karta mana anaa shurda ahe iigey war maa ka joogtid war allaha allamaya war kugulama talna walaalow fursad waayuu dhahay reerkana aniga waxay iga bi'inayaan male gabadha haddaan la aqal galo gabadhaan qalbigeeda dega ayadaa iga celinaysa dadkaa sheegaysid okay waa kuu gey doonaa beri dambe intuu lahaa ilaahay qadarkii gabadhii aabaheedaaba tiisi u imaatay waa uu geeriyooda aabbaha marka gabadhaan hanti fara badan uu kala dardaarmo uga tegay gabadheydana wuxuu dhahay hanti fiican hala siiyo waa halka gabadheydin ku jirto guryo iyo hanti iyo adduunu uga tegay kabacdi markii wiilkii uu yiri ciddii ii gabar u kaadiyo wiilkii reerkii tacsiya gashay uu yiri wiilkii cabdiqaadir ah anaa yaasiin uu kuu gey doonay waaya tacsidii ala laabay tacsid markay muddo kasoo wareegatay
ayuu wiilkii yaasiin ahaa isagoo dheg la qabta lahayn cabdiqaadir u tagay wuxuu yidhi wuxuu kuu sheegaa horta gabadhii maalin kale kuu imaata ayagayoo sida u sheekaysaaya unbaa gabadhii fud meel meeshaana kasoo tiri saa wuxuu yidhi oo kaalay xaanba wakiilkan uga dhiganayay maanba gabadha aniga afkayga kula hadlo waay aan kan u leeyahay waryaa gabadha ii doono gabadha reerkeeda ii geeyo asagaaba laga yaaba inuuba gabadha ii diidan yahe maan anigu lugayga ku raadsadoo gabadha la hadlo markaasaa gabadhii halkaa kasoo soctuusuu u fiirinaya aqalkii meeshii soo gaartay way ka adeegatay kadib uu yidhi yaa bintiba kula hadli karaa markaasay tiri nacam ahlan wasahlan waa ila hadli kartaa maxaa diida inaan wada hadalno oo gabadha waaba gabar muxtaramada iyadoo ceebba ma lahane hay waa ila hadli kartaa ay tiri wuxuu yidhi baayoy albaabkiina ma la soo garaaci karaa markaasay tiri maxaa ka wadaa waa iska fahmi kartaa in reer magaal noqo albaabkiina ma la soo garaaci karaa hore ma loo soo garaacay markaasay tiri albaabkeena waa obino waa la soo garaaci karaa laakiin waxaa soo garaaci kara nin ay ka go-antahay inuu albaab kale ka soo galo aanan daaqadaha ka gelayn maya daaqadaha kama gelay macnaha waxaa laga wadaa nin guur si dhab ah u rabo anaga gurigeena imaan karo nin aanan guur si dhaba u rabin albaabkeena sooma garaaci karo aniga wuxuu dhahay guuraa si dhaba u rabaa albaabkeena inaan soo garaacaan rabaa daaqada kama soo galaya sidii dooligii reerka ma ii fasaxeeho war isii ahlan wasahlan ay tiri gurigaas iyo gurigaas cimaaradaas ciwaankaas halkaasaan deganahay waa ku kaasaa ii imaaw walaalaha iyo hooyaday aa iga soo gogol fadhiisan kartaa okay u dhaha wiilkii farxad kiyo wuxuu yidhi dhegayso gabadhii aan kaa barbaryaaye aan ku lahaa ii doon anaaba maanta ka dhamaysta reerkeedana waa ka doonaa i dhegaysoo yidhi waxaad ka hesho waxba ha iga siin waryaa i dhegaysoo yidhi naagta dahabka sidaan ugu hilan hanti iyo adduun leh walaal ayadaan sasabaa jeceel aan wadnaheeda saas u dhex fadhiisaa boolbo markaa maskaxdeeda u furfurtana walaalaheed ayadaa iga celiyda reerkeedayna waxay u tahayba gabar oo hooyadeed ay ka adeejiyay ragga aa sheegaysid ma saas ahaa waxaa ka heshid waxba ha iga siin naagta raggii magaalada oo dhan ay doono waayeen aa doonatay war wixii maxkamad iyo booliis iyo faariheed ahna anaaba u boolis oo shurdada ku jiro wixii kasoo harana anaa aqaana ayada leeba ka adeeja ayaga leeba isku dilaaba okay calaahi taxal masiira maalinkaana iyadoo aada u faraxsan ayay reerkeedii u tagtay kadib ay hooyadeed waxay ku tiri hooye kaala warniyo anabdhehayo qeyr sheeg gabadhaydiye hooye wiila isoo doonan oo wiil noocee wiil shurday ah oo soo maadan dhihin mushkilad iyo broboleen iyo askari iyo wax la xiraaya iyo ma rabi hooyo saa jecesha haddaa weysid saa ka badi weysaa la yeelaay wax isoo doonanayo uma jeedo wax iisoo gogol fadhiisanayo uma jeedo cimrina waa igu socdaa 20 iyo dhowr jiraan oo 30 u socdaa hooyo anoo yar inaan guursadaan rabaaye wixii ka dhacaya ka dhacaane ii doon aniga waa raba inaan guursaday yani ninka iga ogolo uu isoo doonanayaay ma saasaha hay waayahay wiilasha kula dhashtaa u sheegaynaa si aqligiisana u fakartay waayo ilaa iyo hadda wax dee gogol fariisad ah oo aa u jeedna ma lahan kolley hooyo saas waayo wax iisoo gogol fariisanaya uma jeedee ninkan wan fursan oo beer daraa la dhehee yuusan idhaafini hooyo ninka isii okay tiri gabdhi wiilashii la dhashay ka dhaadhiciso waxay tiri gabadhii idinla dhalatay waa la idinkaga soo gogol fariistay marka gabadha waa inaad bixisiin yaa nooga soo gogol fariisto yaa waaye ninka gabadheena raba ninka gabadhiina raba waa nin noocaas iyo noocaasa ninkaasa idinkaga soo gogol fariistay marka gabadhii inaad dhiibtiin aa laydinka raba waa dhiibaynaahay dheheen gabadha nala dhalatee ninkana soo aadi kabacdi ninkii maalin maalmaha kamida la balamiyey kabacdi reerkii uu soo gogol fariistay walaashiina idinka rabaa wiilashii waxay dheheen soo dhawow waxaa loo fidiyey dirin weyn soo dhawow waa la dhahay horta gabar boqorad hadday boqorata agteena ka ah ya oo saas in madaxa loogu salaaxo maahane aanan korkeeda tasxisaa looga buubin waayo gabadha masiira aa soo doonate na dhegayso dhiigeeda malihid dhaqankeedaa leedahay annaga gabadha walaasheena nagalama soo agmaro mashriq iyo maqribba waa laga yaqaanaa agteena waxay ka tahay qadul axmar nagalama soo agmaro haddaad si sharaf la u dhaqanaysid waa ku siinaynaa haddaad si sharaf la u dhaqan doonina malagaaga ha soo doonanin albaabka si nabadgelyaa siday rag hore uga baxeenba walaal macaano uga bax wuxuu yidhi dhegaysta halkaa dhakadaa mujeedaa soo idinma saarna meesha ka koreyday ii saaran tahay boqoradaa ka dhiga doonaa guur aan ka rabaa owlaadayda hooyadood inaan ka dhigtaan rabaa wax xumaanana maba u quuri doono gabadhaan junuunaan u jecelahay lacagtuu jecelya ayada ma jeclee ee gabadhii isiiya gabadhiyaa loo wacay walaasheena ninkaa raallima ka tahay haaye tiri raalli iyo nusaan ka ahay sidiyaa la isugu quduubay gabadhan markaa waxay is leedahay ninkaani markuu soo doontay yuusa ku dhaafin aaday isaga daacad tahay ninkii waxay uga sheekaysay sirihii guriga iyo khusuusiyaadkii oo dhan
waxay tiri anagu hanti aan leenahay aabe intaasoo hanti oo iga dhintay inaa guri aa adiga leedahay idejisid ama ijaar idejisid maahan horta waxay tiri adigu guri aa leedahay miyaa idejinay halkee idejinay mareerkaaga idejinay may guri ijaarahan ku dejinay abo idhageysay tiri anigaaba hanti leh anigaa guri aan leeyaho magacii ku qoran yaho aabe iga dhintay heesto ijaarna uma baahni guri kalena uma baahni reerkiinina ima dhex dejinaysid gurigaasaa wada degaynaa hee walaalaha iyo waalidkaa ma ka dhaadhici kartaa anaaba iskale maxaan ka dhaadhicinaya tiri aabeyaaba iiga dhintayoo dhaxalkii aabahay waaye waayahay oo dhahday sheekadu saa tahay raali iyo nusaan ka ahay meeshaa ku qanacsantaana kula noolaana calaayati xaal waa farantigeliskiyaa loo suubiyey mudday isbarbarteen waxaan ku idhi kadib sidii ayaa aroos qurux badan loogu dhigay walaalaheed iyadoo aad u faraxsanay gabadhii galbiyeen gurigii ayada ay milkida u laheed ee aabaheed uga dhintay ayaa sidii loogu guuriyey bilowgii nolosha ninka xoogaa maadaama uu asalkiiba gabadhan danta uu ka lahay hanti ahaydoo uu islaa hantidan yaa dhinac ka gal wuxuu bilaabay xoogaa horta inuu xishoodo marka qaar inuu su-aalo weydiiyo inuu yidhaha maanta mashruucaan rabaa inta inaan ka suubsado maanta kanaan rabaa intaan inta ka yeelo baabuurkaana iga fadhiistay baabuur la-aana ahaydo shaqada saan kuma aadi karo gabadhu marka waa iska daacad maalinba waxbay siisaa kabacdiyaa waxaa dhacday marka ninkii inuu tartiib bilaabay inuu gabadhii ugu balaarto tan waaba ii jilicsantahe wuxuu yidhi warba igama diidayse waa inaan jaranjarta siday u kala koraysaa loo koraaye aan dabaqada si tartiiba aan u koraa ilaa fooqa aan soo istaago hantideedoo dhanba aan dhexda ku fadhiisto gabadhiis horta jacayl junjunne ninka u qaade canugii koowaada caloosha u galay waxayba taagantahaba kan anigaaba nasiib leh hadduu marwe iga dhigtaba waayo noloshii aan ogaayo iga soo bixiyey jaarkaygu waa ii imaadaan anigu waa u tagaa asxaabaan leeyahay qaraabadayda kuwa waa i xiriiriyaan inaan kuwii musiibada ila dhasha kasoo bixay dadku aaminsan yihiin cid fuquuqayda ma leh anigaaba nasiib leh i taagantaa ninkaan inuu marwe iga dhigtay kabacdiyaa ninkii markaa hanti walba uu warsado way siisaa ilaa aakhirkii wuxuu yidhi fiiri gurigan aan degannahay adigaa ku qoran ma og tahay aniga dadka waxay dhahaan hantida naagtiisa unbuu ninkaani ku nool yahay ninka ragga ah balmuu shaqaysto balaaya ku disha ma iraa ninka raggaa ceebay u tahay ma og tahay inuu xaaskiisa le wax ka sugto inaa mar walba waxaan u baahana adiga le kaa sugto ceebay tahay ma og tahay aasay tiri xabiibi warkaa iisa sarbeebine waxaan leeyahay adigaa iska lehe alla daacadu wallaahi ma qasaarto waxaan leeyahay kama qasaarayside mana weynaysidoo kama qadayside warkaa ii sarbeebina siduu ya wax iigu sheeg maxaa rabtaa sidee wax u rabtaa waxaan rabaa walaalay macaantooy inaa hantidaada wakiil igu dartid qofku markuu wakiil yahay bangiguu tagaa fiisa kaaroo kale hadduu yahay siduu rabuu lacagta ula soo baxaa haddii caadi bangiga looga soo qaadanayo wakiiluuba wataa magaciisa wakiilaa ugu qoran intuu rabo uu lacagta soo qaadanaa soo marka ninkan badrooniyooba noqdaba gabadhan lacag walbo iyo wax walba ay leedahay wakiilay uga dhigte walaalaheedaa sheekadii ogaade naayaa ma waalan tahay ma doqonaa tahay maxaa kugu dhacay maxaa xoolahaaga wakiil uga dhigtay naayaa ninka sidaa dhana isku wada siin way tiri ninkayga keliya maahan waa gabadhayda aabaheed waxaas inaa dhahdiin ma ahan ilmaa isku dhalnay aniga asaga meel kale ma jirno naamaa ka joogta naa walaalaha aan nahay naa hantida adigaa iskale anagu kulama nihin hooyadeeday ka adeejida waxay tiri hooyo dadkan buuqoodayasii soo gaarin nolol midda ugu qurxoonaa ku jiraa xoolo adduun wax ay tiri ayaan malahan ninkaygana anaa ku qanacsan anaana hantida siista hantida anigu sooma lihi ma qof ila lahaa jira anigu soo saan raba kama yeelan karo waay 24 saac walaalahay ay hantidayda ugu mashquulsan yihiin hay nabadgeliyaan masaasa okay tiri haddaa ku qanacsantaa wiilasha anaa kaala hadlaaya maamadii isla markiiba waxay la hadashay wiilashii waxay tiri dhageysta gabadha walaashiina waxay ku qanacsan tahay waa inaa kula qanacdiin waa inaa walaashiin xuriyadeeda iyo ninkeeda iyo gurigeeda aydan la maamulin wax ma idiin sheegaa faraha uga qaada ayadaa taqaano wixii danteeda doqonna maahane faraha uga qaada masaasaa hooyoy garataha anagu awalba ayadaan wanaajinaynay in ayada la dhacaan kasoo horjeednay qof weyn wadkiisu waa yaqaanaa aqlina gabadhaydu waa leedahe ninkeedii ayada ha dhexgelin hadda kuley way dhaqmaysaay waayahayay dheheen wiilashu marka qaar waa soo salaamaan ninka xoogaa marka indhahay usoo gaduudiyaan walaasheen yaa weylak hadday wax kaa soo sheegato walaasheen kuma qeyli karti walaasheen saama yeeli karti haye madaxu u salaaxaase sharafle uu soo dhaweeya hantidii oo dhan sidii ninkii wakiil uga noqday cid jooq iyo jaaq u dhihi kartana ma lahan oo gabadhan masiiraha ayadaaba albaabka soo taagan oo ninkeyga iga leexda canugii labaadaa calool u galay canugii saddexaadaa calool u galay taqriiban 11 sano 12 sano ayagoo isqaba oo gabadhaanu ninkaani maalinkay nolol wadaageen
ilaa 10 sano iyagoo isqaba isugu mid u tahay oo saa markuu albaabka uga soo galo shaatiga ka qaado oo kabaha ka qaado oo waxaan ku musqushiisa biyaha ugu sii diyaarido oo cunto asaguusan soo shaqaysanay hantideeda ee VIP wax yar oo birdho unbuu helaaye ay isugu aadido ay u foornaataydo oo miiska cuntada loo sii diyaariyo oo ilmaha laga ilaaliyo waxaan maqli jiray ubaxa biyaha haddii laga badiyo waa dharaa saasaan maqli jiray ay tiraa xabiibi maxaa kuu cad maxaa kuu macaan ha dhicin ha jabin maalinkan ku helaa nasiib dhaafa khayrkee maalinkan ku helaa adduunka oo dhan iyo furfurmay saaxiib yeeshay jawaadkeeday ka dhehe asaga ku dhihimaysee markaasi aad u koolkoolidaa ninkii meeshuu maxabo ka qaadi lahaa yaa wuxuuba taagan yahaba tana ma i dhashay mise waa qabaa tani ma i dhashay mise anaa qaba koolkoolin badana oo suuro badana ishiisii meel kala layba wac ku tiri gabar jaarkiisa ah oo misbaax la dhaho yaa ma kuu caashaqi karo mahee kuu caashaqi karo ninkii dhanee la koolkoolinaayo koolkooliskii iyo nimcadii iyo noloshii uga dirtay fak looba kuu yiri naag jaarka looba kuu caashaqaba hadduu naagtii jaarka caashaqay xiriiraa dhex maray way ogtahay inuu waxaas leeyahay jaceylkii adduunkaa laysku qabaa afaraad shuux laysugu hayaa gabadhaan mar waxaa laleeyahay booliskii aan jiraa caawa roondaa la ii diray caawa halkaasa waxaan ka ahay maxaa la dhahaa banda waa jiro caawa kanaan ahay caawa kida habeenkuu imaanayana ahlan wasahlan xabiib shubacyadii adduunkay u shidaa habeenkuu maqnaadana cunadayba tiraaba sii qaado oo kuleelisii adduunya cunto ugu diyaarida waaba raaliya janno raaliyanimadii uuba wuxuu ka qaadaba cadaawad ninkan marka wuxuu rabaa gabadhan inuu gabar kale la guursado wuuna ogyahay oo reer kulkululay ka dhalatay naag sooma agmarsii karo maalin maalmaha kamiduu marka wuxuu la sheekaystay kii magaca xumaay ee qadiirka ahaayee aan u bixiyey cabduqaadir wuxuu ku yidhi war isii adaan talo kaa rabaa maanta gabar misbaax la dhaho oo sidaa u ifaysa oo qurux badan aan xaafadda ka bartay gabadhaasaan rabaa inaan guursado xaaskaygana ma ogolaanaysa inaan guursaday maxaa xal ah runta u sheego inta u tagtid waxaad ku tiraa waa guursana war saas aqli ma noqonaysa hantidan iyo adduunkan dhan igala wareege hantidan inaan dhexda uga jiraan raba aana guursado maslax aan ku guursaday xal ii keen ma saas ahaa warniyaho bal waa kasoo fakaraahu dhehee maskaxdaydana waa kaa iibsanahay adiguna bal soo fakaro wixii kuu soo baxa iila imaaw ninkan markaa yaasiina fikrad waxaa usoo baxday inuu gabadha ma aragtay si kaftan uu ku yiraah lacalla ma siirey haddaan guursado maxaa suubi laheed ma maseeri laheed ma iga tegi laheed walaalaha ma igu diri laheed aasay tiri ayaa guur iyo magaciis maba kaa maqli karaba haddaan guursado waryaa wax ma kuu sheegaa maxaa iga weysa maxaase u guursay awlaadna waa kuu dhalay hanti adduun waa ku dhex jirtaa hadhicina jebin aan ku dhahaa maxaa kuu cad maxaa kuu macaana igu qabtaa maxaa tidhi haddaan guursado oo maxay guurkaa ka hadlaysid ma guursan karti guurna ma maqli kara halkaas iga fadhi hee waa caadi adiga adig jaceylkayga xubul awalaa tahay wa xubul aakhiratan laakiin waa iska guursanaa ma maqli karay tiri adduunkan kula gilgilaa haddaa guursatid jaa wuu ogaaday inayna ayada guur maqli karin waa uu soo baxay kii cabduqaadir oo u imaad war cabduqaadir naartii xoogaasi kaftan ah aan waxaan ku iri waa guursanaa waxayna igu tiri guur kugu maqli karee niyow xalisii niyow dhegaysuu dhahay ani horta waa fakaray intaan kala maqnayn aniga waa fakaraa waxaan fakaraba halka kaliya ee ii soo baxay wuxuu noqday naagta ayada dhanba inaa ka taqalusid gabadha misbaax sooma jeclid soo jacayl junuuna uma qabtid nacam jacayl junuun mid dhaafay weliba aanu qabaa ka taqalusuu dhah naagtan see uga taqalusaa se oo macnaha in adigu aadan dilin oo si kama ay u dhimatay ama xabado meel lagu rasaaseeyo kale wax saasa qudadeedaan raadinaynaa anigana maskaxdaydan kaa gadanaa qudadan anaa kuu keeni doono qaabkaa ku dilaysid adna beri ku noqonaysid kadibna hantida iyo adduunka adaa qaadanaysid guriga adaa haysanaysid gabadhaa jecesha ee misbaaxa guriga ku guursane waa ku kaasaa warniyo wuxuu dhahay dhaqso soo fakar misbaax maalin walba waxay tiraa haddaadan aniga sida ugu dhaqsiyaa badan ila guursanayn waqti hayga luminine ma raba gabadhaas quruxda badan inay dhaaftee okay ii kaadiyuu dhahay kii haddana fakar kale uu ku maqan yahay maalin maalmaha kamid ah marka waxaa dhacday ninkan isagoo shaqadiisu maadaama uu boolis yahay meel banda uu ku jiro lagu qoray ayaa waxaa dhacday habeenada kamid ah ayaa ayagoo tiro badan oo askar ah siday u roondeynayeen guruubaa shaqadii laga fasaxay oo la yiri gurigeena ku rawaxa markii shaqadii laga fasaxay horta intaan shaqada laga fasaxin habeen roondada lagu qoray ayaa xaaskiisa intay cuno u diyaarisay ee waxay tiri caawi cunadaada hore u sii qaado cuno fiican u diyaarisay cunadii waa askartii maadaama askari walba mid maqaayad wax kasoo gato mid xaasiloo xaaskiisa cuno kasoo qaatay ay tahay ayaa cunadii uu gruub ka mid a wuxuu yidhi kaalay ila cuna saa cunadii saa haddii loo dhadhamiyeyba waa cuno dhaqameed ah ayaa cunadii aad ay uga heleen reer marka
يعني dhaqanka halkaas leh wadanka qisadan ay ka dhacayso waa cuntada dhaqankooda oo aadka ay u daneeyaan kadib askartii cuntadii mid walba markuu saa u dhadhamiyo waaba la suuxaaba macaankeeda war cuntadan noocaan ayaa suubiye xaaskaygaa suubisaye anaa idinku casuumaayo maalin maalmaha ka mid ah ayaanba cuntadan idiin suubinaya gurigayga ku casuumantiin ma saas ahaa maalin uu gurigiisa joogo xaaskiisa wuxuu ku yidhi xabiibti yaa masiira cuntadii aa suubisay wayba ammaaneen asxaabtayda maalin asxaabtayda miyaa casuumi kartaa nacamay ku tiri gurigay imaadeen may wuxuu ku yidhi asxaabtayda maalin hebel cuntadaas diyaari waan u qaadayaa waxaan u geynayaa maxaa la dhahaa meesha oo yani aan ku wada rondeynayno waxay tiri horta marka koowaad guriga aan ku casuumno guriga aan ku suubiyo mar kale aan halkaas ugu gey doonaay maalin ay casuumeen cuntadii VIP da u suubisay aaday ula dhaceen maskaxdoodiiba cuntadii ka bixi weysay mar kale haddana ka dalbadeen mar kale markay ka dalbadeen wuxuu yidhi okay xaaskayga u sheegaa galab galbaha kamid ah asagoo cawadoo kale shaqo ku qoran ayaa waxaa dhacday inuu yidhi cuntadii ayaan dee xaaskayga kasoo dalbanayo noo soo suubinaa cuntadii xaaskii suubiday galabtaan asagaa soo qaaday meel markaa ay xilligaasi ku qornaayeen oo ay ilaalinayeen askartii asagii maadaama asaguna askari yahay unbaa hal marxabado baas laga furay barararac waryaa furay dadaa marka ku dhintay aduu dadkii ku dhintay marka si kama inay u dhinteen magaaladoo dhan gashay qof dilana aan la ogeyn ma askartaa rasaas ka fakatay ma askar kalaa ka fakatay adigu waa la garan waaye kadib marka maxaa dhici doono meeshii ayaaba qudo uga soo baxda sheekadii marka wuxuu uga sheekeeyey wiilkii saaxiibkiisa ay cabdiqaadir ahaa xaaskaygaa cunto karisayo halkaas askartii aniga ku cunayo dad baa meeshii ku dhintayo kii inta soo bodow yidhi alla fikrada meesha iiga soo baxda fikrad noocee ah habeenada ka mid a saasoo kale cuntadii usoo diyaari xaaskaaga asxaabtaada cunaha usoo diyaarido mar alaale markaa cunowga bilaawdiina aniga iyo nin kale ayaa meel ku dhuumanayno xaaskaaga markay cunada soo qaado ayadaan baaska ku furaynaa kadibna hala dhaho idinkuna xabada fura maadaama askartihiin si kam ah inay ku dhimatay ha laga soo qaado wallaahi wax kaa fikrad fiican male mucjisaa tahay meeshiyaaba fikrad ka aragtay oo wiil fikrada ku siiya laakiin fikradayda haddaba lacaga ku bedelanooyaa hadhow weji kalaha iila soo bixin ballantaha iiga bixin naagtaad haddaa ka taqallustidna aniga iyo adigu isma naqaano meesha aan kuugu dilay a isuukaaya dambaysa hay soo sheegan kuma soo sheeganayi arladaada ilaahay mar ani adigu isma naqaano balantaa iyo qaad waayo yuu yidhi lacaguu sii kadibna wuxuu yidhi hadday qudada noo shaqayso lacag kaloo intaasaa ku sii doonaa bacdeen xilli duhur ah intuu shaqada kasoo rawaxay cawadana uu ku qoran yahay rondees ayuu gurigiis ka seexday mar casira uu shaqadii isku diyaarinayo unbuu dhaha la xaaskaygiyey yaa masiira waxbaan iloobay markaasay tiri maxaa ilowday cuntadii ayay asxaabtaydii dalbadeen ma ogtahay caawana rondeeskii aan ku maqanahay yani aan ku maqnaanayaay xabiibi mataasaa wax laga fakarahay tiri he anigana waa daa xilli dambe waayo waa bixi rabaaye ma cuntadii aa ka gaarsii kartaa haddaan foornaynayaaho sida ugu dhaqsiyaha badan aan kuugu diyaarinaa waayahay isla markiiba gabadhii waxay tiri jikadii inta gashay oo cuntadii adduunkii isku habayday oo waxaan ku iryahay wixii suubisa karta jag ka siiday ay tiri xabiibi waa ku kaasaahe cuntada calal aqal adigu qayb ka cun ama cunto kaloo taalla cun may anigu waa dharganahay cunadaana waxaan rabaa caloosha inaa usii banaysto adigu soo makasiis meesha rondada aa ku suubinahaa ii keen cuntada saacaddu markay saacaddaa iyo saacaddaa tahay ii keen maxaa la rabaa gabadhaan markay cuntada saacadda iyo saacaddaa markay tahay cuntada ay u geyso in baas lagu furo oo kii saaxiibkiis iyo ninuu soo watay ay baas ku furaan gabadhuna halkaa ku dhimato kadibna askartu xabada furaan la garan waayaba qofka xabadaha furay isagii xaaskiisii aana ku dhimato lagama shakanaayo ilaahu maxaa la yidhi meeshii diidiin muxuu yidhi waa laguu tashtay markaasuu yidhi meeshii la iigu tashtay ilaahay sooma joogin waxaa kaloo la yidhi ilaahow qof aan wax ogeyn ha cadaabin gabadhii maskiinta aheyd dhididku wuxuu ka leeyahay bash waa raaliyo ku qanacsan soojkeeda inay raali geliso jikadii inta gashay oo cuno VIP karisay oo weelal wanteema soo aruuriday oo cuntadii ku kala shushubtay habaysay ayay isla markiiba waxay bilowday inay isdiyaarido labadii ninkeedii iyo kii saaxiibkiisa ay kii kale jaa ayagiina waa ay tashteen wuxuu yidhi kii yaasiin ahaa xaaskaygii saacaddu markay saacaddaa iyo saacaddaa tahay ayay dee imaan doontaaye isla markiiba anigu waa idiin baaqi doonaa saacadda markay ku dhacdo idinkuna looqeedaas ku dhuunsanaada baaska ku fura
meel marka isku muuqato ay joogaan. Subxaanaka yaa cadiim, qof aan nolol la wadaagaysid oo ilmahaaga aabbahood ah. dadku markay wax isku dhalaan dadka kale waa isaga dhow yihiin. wuxuu kuu qorsheynaa siduu kuu dili lahaa oo nafta kuu dhaafi lahaa, maalkaagana naa kale ugu guursa lahaa. kadibaa marka waxaa dhacday gabadhii ilaahay qadarkii xilligii xoogaa xilli dambe inay wiyay aragtay mugditaa caradu 2 ilmoodoo ay dhashay ayay 2 inta isaga tagtay ay midkii roonaa ayay waxay tiri kaala hooyo iwehli, wiilkeedii roonaa oo dhexe ay tiri kaala hooyo iwehli. 2 kalena waa isaga tagto waxay tiri waa imaanaynaa aniga aboowe, aabbaan casho u qaadaynaa. waa soo dhaqaaqday ayadoo socoto waxay sugaanba hal mar unbaa bararac baas isdaba jooga la maqle. haddii la maqlay askartii uu ka mid yahay ninkii yaasiin ahaa waa wada kaceen. yaasiin haddii uu is yiri allele xaaskaagii caawa waa la toogto mar dhowaad shahrul casal gale, tii kugu dhegneedee adduunka aad u jecleedoo beri dambe iguurso kugu weyd haddii kale nin kale aan guursaa caawaad dee maasha allah hadda ballanuun isla galabta inta la kulma kasoo qaaday uu yidhi xabiibati luqmadda iyo afka aaday isugu dhow yihiin, macnaha aakhiri laxdaan taaganahay, mar dhow ani adiga waa wada aqalgalaynaaye waqti yar isii. ayaduna waxay soo tiri waryaa haddaadan wax soo wadin haddaadan tegaynin tahay maxay ahayd haddaadan tegaynin ama aadan tumaynin matiirkii magaaladaa tahay. waxay tiri haddaadan soo socon walaal hore ii dhaaf. mayuu yiri isbuucaan keliya isii gudihiisaan reerkaaga u imaanaahe. jaa isagiyoole waa ii dhacatay unbuu hal mar hadduu meedkii rafanaayo saa u soo dul istaagay. waaba gabadhii uu jeclaa ee sabaax aheyd. sabaax maxaa meesha keenay yaa ma masiiraa soo balmisoo musiibadan tiri lugta ayada u geli ninkuma wuxuu u falkiyey ogaatay maya xaashaa lilaah, ilaahay baa meesha wax ka wato. gabadhan sabaax ah isla maalinkaas ee gabadhan masiira faldambiyeedka loo qorsheynaayo ee la rabo ayada in laga taqalusee nolosheedii gurigeeda lala wareego ayaa waxaa dhacday in gabadhii sabaax aheyd maalinkaasba nin uu soo doontay. way taqaanaa wiilkan in shaqadiisu ay halkaas tahay. reerkeeda waxay tiri iikaadi iyo waqti yar isiya si orday marka waxay rabtay inay kan kula kulanto kan ayadoo usoo socoto. hadda qadiir kii inkaar qabaha ee saaxiibka ay cabdiqaadir ahaa iyo ninkii kale meesha qof kale kama balansanayne waxay u maleeyaan masiir hal mar unbay baas ku fureen baararararac. aw yaasiin mar alaaliya markuu arkay in qofka la dilay ay tahay sabaax af labadiisu dhawaaqay yaa qadiir jooji xabadanba ha furin tool beelayey qofka la dila masiir maahan waa sabaax maantaan go-ayey maantaa musiiba igu dhacdayey. wuu balaanbalay gabadhiiu meedkeedii isku duubay naftaaba kasii baxeydaba tiriq. markaasuu yidhaa adiga kulama rabin, inaan kula aqalgalaan rabay, inaan ku guursadaan rabay, mustaqbalaankaa lahaa. mustaqbalkiisaba ee markuu arkay gabadhii in assoo dayay ay naftu tiriq ka tidhi. meeshiina boolis mashriq iyo maqrib kuwii asaga la jooga leeba ay yaaban yihiin ay tahay meelay joogaan. qisada dhacaydana aysan asxaabtan roondaynaysa aysan warweyn oo ninkan iyo 2 wiil bas ay ogyihiin unbaa booliskii sahday usoo dir istaageen. waa gabar nafti kasii dhacayda iyo kanoo qaylinaayo ole sabaax adiga kulama rabin taasaa la rabay. markuu arkay gabadhii inay qaf tiriyo naftu ay ka dhacday ayuu bistoolad inta soo qaato isagu baararararac isku siiyey. isla markiiba iscaafaa loo wacay, baawur ambalaasya degdega asagii lagu qaaday, isbitaalaa la dhigay. waaba iska qarwaaba askartii mid yaaban mid aan fariirsan ayay noqdeen. laakiin isla markiiba roonda ay qabteen waxay meeshii kusoo qabteen wiilkii qadiir ahaa iyo wiilkii kale ee asagana faldambiyeedka dhinaciisa ka watay. waxaa kuu soo hartay masiir war ma ogee markay xabadihii dhaceen jidkay kusii jirtay ayadii wiilkeedii meel unbay inta ku gambadeen oo ku dhakadeen. aasay u dhakanaayeen markay meeshii gaareenna waxaa loo sheegay ninkeedii inuu dhaawac yahay. kadibna waa soo carartay cunadii jidkii ku tuuratay. kabacdina isbitaalkii aaday ninkeedii koomuu ku jiraa ilmaheedii aaday. aakhirkiina maxaa fashilmi doono? aakhirkii waxaa fashilmay ninkii horta qisadii waa uu fashiliyey oo wuxuu yidhi aniga saas iyo saas ayaan dee qorsheeyey. gabadhaan jeclaa inaan guursadaan rabay, xaaskaygana inaan ka taqalusaan rabay, laakiin maxaa igu dhacay? meeshaan islaa xaaskaaga ka taqalusi tii aan jeclaayo dunida ugu jeclaa aanba ka taqalusiyaba.
gabadhii reerkeedii imaaday meedkii meeshii laga qaatay gabadheena mar dhaw aroos noo gali rabtay mar dhaw la soo doonanayay alla tolbeelay calaacal ugu dambeyntii markaa asaga qisadii markuu kashifay oo waxba uusan qarin kaliya wiilkii saaxiibkiis ahaayee dilka gabadhan u geysta laakiin aanan yacni qofka uu dilaya ka fiirsan balse halkaan lagu balamiyey gabadha ayaa wuxuu yidhi ninkan ani waa la kaftamayey ma u malaynay inuu si dhaba wax u dilaayo aniga waxay iga eed kaftan asagana dhabu u qaatay calaa itixaal sidii asagii waxaa loogu xukumay markuu dee dhaawacyadii iyo xabadii uu isku dhuftay uu kasoo fiicnaaday isaga weliba wuxuu rabay inuu webi isku tuuro nafta isdhaafiyo maadaama gabadhii uu jeclaayo dunida uu ugu jeclaa asaga uu sabab u noqday inuu dilo maalinkaasna iyadu ay rabtay inay la tashato ay tiraahdo xabiibi aqru laxdan joognaa waa liisoo doontay maxaa xal ah maxaa rabtaa inkastoo gabadhaan aysan qudada la ogeyn gabar kale in la dilaayo intaba ay ogeyn xaaskiisiina aqalkii ay ogaatay inuu qudo la rabay laakiin gabadhii uu dunida ugu jeclaa ilaahay uu godkaasi ku riday ilaahayna ayada uu mootiyey uu uga raayay waa ilmihii ay dhashay aabahood ugu dambeyntii asagii waxaa lagu xukumay dil toogashaa gabadhii sabax aheyd sidaasa misbaax aheyd loo soo aasay asagiina dil toogasho ayaa lagu xukumay markii uu kasoo baxay isbitaalka kadib booliskii oo dhan waa argagaxeen waa amakaageen dadkii qaryada xataa waxay dheen yaa la aaminaa ninkii dhan ee ximaayada noo ahaa ee la ilaalinayay ayaaba asagii xaaskiisii dil toogasho u qorsheynaye ugu dambeyntiina gabadhii sidii tiri ii dalaaq balaayo ha kugu dhacdo xabsigaaga gal inkaar ha kugu dhacdo sidii aan kuu wanaajinaya haddaa anigaba god iyo qodaysay oo rabta inaa godkaas igu faagtid ilaahay wuu iiga kaaraayay godkiina adiguu kugu faagay waxyaabihii uu qorsheynaya dhanka muusan qarin inuu rabaantideeda inuu dhaco inuu rabay inuu ilmahan birito ayeeyada uu yiraahayso inuu rabay gurigeeda inuu naagtan ku guursado wixii oo dhan gabadhan way ogaatee dee walaalo mujrimiinaha la dhashtay isla markiiba waxaa loogu tegay bartii uu ku xirnaa xoogana gabadhii looga furtay gabadhuna ayadu raalli eeba ka aheyd maxkamadaa la isi saaray maxkamadii ayaana ka furtay asagana sidaasuuba dunida mardhow uga hayaami doonaa waxaa la yiri god sideeda qodin haddaa qodidna ha dheerayn su-aalaa rabaa marka inaa idin weydiiyo min fadlan walaysa amran su-aalaa rabaa inaa idin weydiiyo halkaana isla soo gaarnay marka qisooyinka soomaalida loo fiiriyo iyo qisooyinka carabta yaa idinla dhadhan leh ilaahay idinkoo ka baqaysiin aniga wallaahi xiliyo way jirta qisooyinka soomaalida dhadhan ila lahaayeen laakiin fadarooyinkan waxaa dhadhan ilale saameyn ilale aada u xiiso badan qisooyinka carabta anigana waxaan ku qanacsanahay ayaan wadayaa inkastoo muuqaalkan aan rajaynaya inaan qiso soomaali noogu xijiyo soo marka hadduu ilaahay kala noqdo aragtidiina aadaa u danaynaya laakiin qiso soomaali janalkayga xoogiisa ma saari doono bad marka qaar waa kusoo dari doonaa qofkii igu jecel waa soo dhaweynaya qofkaan igu jeclayna dee walaala raali noqda sababta idinkugu sheegana waa idiin sheegay qiso soomaali zaa'id haddaa u badiyo way isaamaysaa salaadeydana way saamaysaa ilaahana ka bari wax ka kheyr badan ilaahay inuu igu irsaaqo soo ani waxaa ku qanacsanay qisooyinka carabta inaan aad uga sheekeeyo meeshii aan uga sheekeeyo ma isaamayso ayaan uga tagaa salaadeydana ma saamayso marka la fiiriyana xataa qisooyinka soomaalida adag marka la fiiriya carabta haddana saas deetaa waa idiin soo gudbi jiray calcumuum ra'yigiinaan danaynayaa haddaadan muuqaalka laag iisoo saarinan laabo muuqaalka laag iisoo saartan intaan qisadan qisa xigta ku kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa ii nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu